magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa goordhow waxaa ku soo gabagaboomay kulan si guud u dhexmaray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dalka. Kulankaasi waxaa looga wada hadlayay arrimo dhowr ah waxa uuna hordhac u yahay kulanka guud oo ay yeelanayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoominaya kulanka hordhac u ah shirka wada tashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada. Kulankani ayaa ku saabsanaa sidii loo jaangoyn lahaa qodobada muhiimka u ah wada tashiga heer federaal iyo heer dawlad goboleed, hanaanka geedo socodka siyaasadda doorashooyinka iyo amniga qaranka. Kulanka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed iyo Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. Ajintaha shirarkani waxaa lagu sheegay sidii isfahan loo dhan yahay looga gaari lahaa tabashooyinka ay qabaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya.